waan ku jeclahay aboowe dadka oo dhan adiga ayaan ka jeclahay runtii waxaan ka warwarayaa sidaan u noolaan doono adiga la'aanta mar walba waxaan ahaan doonaa mid adiga uun ka fikira macaani weligay waan ku jeclaa jaceylkaaga dartiisna waxaan hurayaa naftayda sida aan kuu raaligelin lahaa mar walbo iyo daqiiqad walbo waxaan ku rajaweynahay inaan noloshaada inta ka dhiman aan kula wadaago naftaydu adiga ay raalli kaa tahay kumana qanacsani qof kale adiga waxa ay tahay khaas noloshayda adiga ayaa ku hiibeeyey runtii waan ku jeclahay aboowe indhahayga ilinta ka daadanayso ma ahan wax beena waa jacayl adiga aan kuu qabo mar kasta aan hurdaayo xilli kasta aan jiifo adiga ayaan kaa warwaraa adiga ayaan kaa fikiraa runtii adiga ayaan ku jeclahay adiga khaas ayaa ii tahay haddii aad jecleen runtii sheeg waxaa igu balana inaan mardan dartaanu gooyo dartaanu silcin anigu dadka waxa ay dhahaan gabadhii waa layd dadka kale way caayaan laakiin ma fiiriyo caaytintooda waxaan sugaa adiga jawaabtaada waxaana fiiriyaa codkaaga macaan haddii aad idhaahdo mardani agteeda imaan waxaa kuu ballan qaadayaa inaan dib dambe kuugu soo laaban aboowe khaas ayaan kaa dhigtay sidaana ha ii silcin ma jeclin in adiga lagu silciyo gabadhan waxa ay ka hadashay xaqiiqda la soco baarti 3 iyo qaybtii ugu dambeysay ee imtixaanaha